qabiilada oo Soomaalida dhexdooda oo la dhahayo lama guursado ana waxaan u arkaa cilad ugu badan oo loo dhahayo not diini ma aha laakiin qof la garama hadhow inaysan miiska wada hadalka keenaynin inay taas sababta ugu badan u arkaa aniga horta ma qabi wiil ajnabi ah la guursado fikrad ahaan waa ka soo horjeeda asalba macna anoo wiil Soomaaliyeed arkaysa u aroosa macna nin ajnabi ah wiil Soomaaliyeed u jeedaabe okay maxaa dhacay wiilkana ma aaminsan inuu guursado gabar oo ajnabi ah okay gabdhahan maxaa qalad baayba gabdhiina aad ugu batay Maari maxaa isla yani qof walba fikradu leeyahay hadii gabadha dooqeeda oo noqday inay qof ajnabi guursado qof dooqiis ma loo diidi karo dooqeeda ay noqoto way guursanay laakiin ani ahaanteed waa ka soo horjeeda in qof Soomaali ah ayaan hataa aan la sheekaysto okay shakhsi Maari Harlin ahaan wiil Soomaali is the number 1 okay thank you ay adiga maxaa keeni karo arrinkan wallahi horta aniga fikrad ahaan ma aaminsani in qof ajnabi ah iska daacadaan iyo waxa xitaa Soomaali ahaan qof ka baxsan in la guursado inay fiicanta dumar ahaan waxay ku dooranayaan hadii ay dumarkii u bateen maalmahan waxa waaye waxa ay dhasho sida caadiga ah haweenka ma ku abtirsadaan yani hadii ay dhasho damar farow just damar farow loo raaca adooga wuxuu ahaa laakiin marka nin raga tahay wiilkaaga iyo gabadhaada adiga ugu abtirsanayaan way ku soo raaci doonaan ina maanta abti fiican doortid way ku fiicantaa هذا علمي أصل أهان حكي كسر جدا تصار هناك سوريان نقول سيدا ما أنت علمي هو صومالي نت سوريان أبتأجنبي أدور ثلاثين نت سوريان نت سوريان جنسي وكالله يا سلام علمي هو صومالي أرجع ماما لكن ما أهان سوريان ساسو إيتا وجورسدي سوريان تصار هوا مركا وحافي عن إن أبتي أهان مركي علمها الله فيرين أيهين أبتي أو لا جرمي كرو ماشو كاجرا وقتها كبدا أجورسنا خلافات هاي معنا khilaafaadkaas waxa lagu xaliyaa si family oo hoos lagu xaliyaa gabadha marka dacwo ka tahay abti aabaheedo kala wacay ama adeerkeedo waxa dhahay gabadhi saasay maanta igu sameeyay reerka ha dhaqato laakiin nin ajnabi ah wacay Suuriyan wacay maxaa dhahay waraw marka in ajnabi laga fogaado waxay ku fiican tahay qof ala garanto oo miiska wada hadalka kula imaatida heli kartaa xitaa hadda qabiilada oo Soomaalida dhexdooda oo la dhahayo lama guursado ana waxaan u arkaa cilad ugu badan oo loo dhahayo not diini ma aha laakiin qof la garama hadhow inaysan miiska wada hadalka keenaynin inay taas sababta ugu badan u arkaa iska dhaaf guuri mooto bajaajada shil gishid maanta isbitaal ay jiifto ma ku imaanay cidiis yani qabiilada qaar sababta loo dhahayo isma ka wadaa taa ma ahan in jinsigoodi iyo lagu nacaayo okay wadaha odama soo dirsanayo gar odaya gala moqt okay why way sameeyay